odaygan wuxuu jidka ka helaya lacagtaan kadibna soo qaadanaya wuxuu imaanaya meesha lagu ciyaaro qamaarka mar lacagtiis kor u kacaysa waxay gaaraysaa 50,000 euro xitaa lacagtu waxay isku dayaysaa intaas ka sii badato kadibna xariifka lacagtoodii loo soo qaadanaya wuuna soo baxaya si uu ciyaaro geemka la sababtoo ah isaga wuxuu rabaa inuu qasaariyo lacagtiisa oo idil markaas ay hadan wuxuu helay lacagtu haystay bah in ka badan markaas ay hadan wuxuu dhagan ku ceshanaa ciyaarta sababtoo isaga mar walba wuxuu rabaa inuu qasaariyo lacagtiisa laakiin mar waliba uu qamaarkaas ciyaaro lacagtiisa waa isii loo jibaarmaysa xariifkaani oo isla ciyaarayeen geemka ayaa ku xanaaqay wuxuuna ku dhaaday lacagta waxa la igsi cunusa laakiin waxba masiinoost waa uu ka tagaya markaas ayuu ninka bilaabay inuu dhaho kaali isla ciyaarno balse ninkii uu ku xanaaqay mar walba sababtoo lacagtu waa la igsi cunuu yaale mar waliba wuxuu isku dayay inuu ku qanaco ciyaarta ciyaarayo wiilkaani sababtoo isaga mar walba wuxuu dhawaad guuleysanaysaa oo kaadi ilaa ugu dambeyn wiilkii uu ku xanaaqay dibna uu ka soo tagay markaas odayga hadan ku fikiray inuu ciyaaro game saddexaad markaas uu ciyaaraya gamekan oo la bursanayo ee wuxuu dhiganay lacagtiisa oo idin markaas uu arkay odaygan oo meesha ka fadhiyay murugaysan eerigiisa sababtoo ugu dambeeyay wuxuu ku dhahay eega nambarka 9aad miyaad leeyahay isaga wuxuu ku dhahay aniga ayaa iskale wuxuu ku dhahay tikidada inuu kala bedelinay isla markiiba balse hal galaas oo biyaha ayaa daadanay dhammaan eeyalkii istaagaan balse eega nambarka 9aad waa uu hormaraya oo tartankii oo idil meesha ka socday bah eegaas ayaa ku guuleysanaya ninkan mar walba lacagtiisa ay si walba jibaar muusa la socdo markaas uu ku fikiray inuu wadanka ka safro si uu lacagtiisa u qasaariyo wuxuu dhahay lacagteeda oo idil lagu sameeyo lottery nasiib wanaag lacagtiisa oo idil ay badbaadaysaa sidoo kale waxa loo sheegay halkuu socday inuu ka dhacay shil aad iyo aad u markaas uu dareemay isaga inuu leeyahay nasiib